kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobadan uu qaybtan ku soo qaadi doono waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dawladaha Soomaaliya Qatar iyo Djibouti oo dooxa ku gaaray heshiis iskaashi oo lagu la dagaalayay Itoobiya iyo Addis Ababa oo cabsi ka muujisay heshiiskan oo halis ku ah heshiiskii ay la gashay Somaliland. haddaba waxaa la wadaagi doonaa macluumaad culus oo la xiriira dooxa oo bilowday qorshe lagu taageerayo Soomaaliya iyo dawladda Djibouti oo arintan qayb lixaad ka qaadanayso. haddaba waxaa la wadaagi doonaa heshiisyadii ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo ay ku sugan yihiin wasiiradii ugu badnaa oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Barre. qodobada kale oo barnaamijkeenu ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doona faahfaahinadii ugu dambeeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho uga dhawaaqay go'aan culus oo ka dhanaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo olole xasaasi ah oo ka dhanaa filla Soomaaliya oo ka bilowday gudaha baarlamaanka ee dalka. cabsi xooggan oo soo wajahday filla Soomaaliya iyo xildhibaanadan oo wacad ku maray inay ka hortagi doonaan qorshe wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa Somaliland oo degnin adag u dirtay Turkiga iyo cabsi xooggan oo ay ka muujinayso maraakiibta xukuumadda Ankara ay u soo dirayso xeebaha Soomaaliya. macluumaad culus oo arintaas la xiriira ayaan sidoo kale barnaamijkeenu ku soo qaadi doonaa. islamida waxaan idin wadaagi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo amray in la dalacsiiyo ciidamadii kooxda argagixisada ee isku jabiyay dagaalkii balaarnaa ee ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. waxaan idin wadaagi doonaa talaabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amray Axmed Madoobe oo fuliya marka madaxweynaha Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan barnaamijkan ku soo qaadi doonaa haddii rabbi laga helo waa 25 bisha Julaay 2024. hasaatee intii lagu guda gelin macluumaadkan oo idil waxaan idin ka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan idinka oo muuqaalka like saarayo aragtidiini wax walba oo aragtaan dib u dhiska dalkeena nagula wadaagaya qaybta hoose ee commentiga. haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto barteena YouTube-ka. mahadsanidin aan ku bilaabo. sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa ay soo taraya xogaha la xiriira macluumaadada ku duugan shirkii qurba joogta Soomaaliyeed ee ka qabsoomay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo laga soo warinayo in heshiis isfaham oo dhowr ah uu ka dhacay inta ay joogeen wasiirada xukuumadda dan qaran iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre. halkaas oo la sheegay in heshiisyo dhowr ah ay kula galeen dawladaha Qatar iyo Djibouti. heshiisyadan ayaa u badnaa kuwa lagu taageerayo dawladda federaalka ee Soomaaliya. waraydo wargal ayaa noo xaqiijiyay in kulankaasi ay qaateen diblomaasiyiin ka socda dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo diblomaasiyiin kale oo ka socda dawladaha Qatar iyo Djibouti. waxaana lagu qaadaa dhiga arrimo badan oo warbaahinta laga qariyay. waraydadan ayaa warinayo in kulamadan waxyaabaha sida gaarka ah diiradda loo saaray kamid ah heshiis isfaham oo ay gaareen dawladahan isla markaasina Soomaaliya lagu garab istaagayo in la dhowro madaxbannaanideeda dhuleed iyo sidoo kale mideeda badeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. arrintan ayaa timaaday kadib markii dawladda Itoobiya damac waalan uu ka soo galay inay hesho qayb ka mid ah dhulbadeed ee leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya. arrintaasi oo ay si weyn kaga caroodeen dawlado badan oo Soomaaliya saaxiib la ah. Qatar ayaa ka mid noqotay qorshaha lagu taageerayo dawladda Soomaaliya isla markaasina lagu laalayay damaca dawladda Itoobiya ee waalan isla markaasina la xiriira doonisteeda badda. waxaana la waraydadan ay xaqiijiyeen diblomaasiyiinta Djiboutiyaanka iyo sidoo kale kuwa ka socda dawladda Qatar iyo xubnaha matalaya dawladda federaalka Soomaaliya isku afgarteen in meel looga soo wada jeesto damaca waalan ee dawladda Itoobiya. arrintan ayaa cabsi xooggan ku abuurtay dawladda Itoobiya iyadoo u muuqato in heshiiskii ay la gashay Somaliland isla markaasina sharci darrada ah haatan uu meesha ka bixi doono maadaama dawladahan ay si weyn saameyn ugu leeyihiin Soomaaliya iyo Somaliland iyo xitaa Itoobiya. waxaana hadda ay u muuqataa in dawladda Qatar iyo sidoo kale dawladda Djibouti ay Soomaaliya ku garab istaagayaan burburinta heshiiskii sharci darrada ah oo ay galeen xukuumadaha Addis iyo sidoo kale xukuumadda Somaliland. si kastaba ha noqotee wasiirada xukuumadda Soomaaliya ka tirsan iyo ra'iisul wasaaraha ayaa Dooxa u tagay inay ka qayb galaan shirweyne la xiriira arrimo qurba joog ah. hase ahaatee waxaa marka ka dambeeya banaanka imaanayo kulamo hoose oo ka qabsoomay magaalada Dooxa intay wafuudan ay joogeen kuwaasi oo ay yeesheen dhinacyada Qatar, Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliya isla markaasina lagu gorfeeyay arrimahaasi. dawladda Qatar ayaa mas'uul u hadlay waxa uu sheegay in Qatar ay si weyn u taageerayso Soomaaliya isla markaasina ay ka shaqeynayso dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo xitaa haddii ay timaado kooxda argagixisada ah ee AS. waraydo wargal ayaa tilmaamay in kulankan uu ahaa mid guul weyn ay ka soo gaadhay Soomaaliya isla markaasina ay gacan ay kaga heshay dawladaha Qatar iyo sidoo kale Djibouti. Djibouti ayaa waxay ka mid tahay dawladaha hadda sida weyn ugu dhow xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana ay Djibouti sidoo kale dhawaan ay jartay xiriirkii kala dhaxeeyay Somaliland kadib markii madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo wada hadal kaga socda magaalada Djibouti oo madaxweyne Bixi uu balanta uga baxay madaxweynaha hogaamiye Djibouti ee Geele isla markaasina uu dhoofay magaalada Addis
kowdii Janaayo halkaasi oo heshiis si weyn dunidu ay kaga falcelisay uu kula soo galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed arintaasi oo ka careysiisay madaxweyne Geele. nidaamka Geele ayaa xilligaasi wixii ka dambeeyay u xusul duubtay taageerada Soomaaliya waxaana hadda la soo warinayaa heshiiskan taariikhiga ah ee ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza ayaana lagu wadaa in heshiiskan ay horgeyso baarlamaanka dalka. dhinaca kale tana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa Muqdisho uga dhawaaqay go'aan culus oo ka dhanaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ay soconayaan olole culus oo ka dhanaa filla Soomaaliya. xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay banaanka xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu wato ee siyaasadeed isla markaasina uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo. xildhibaanadan hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Faa'iise Jeete oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay ku eedeysay madaxweynaha Jamhuuriyadda inuu qaatay nidaam diktaatoori ah oo kaligiis talisnimo ah isla markaasina dalku ku wado wada qarjajeexa. xildhibaan Faa'iise Jeete ayaa wacd ku martay inay ka hortagi doonto qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay doonayaan in dalku ay haadaan ay kaga ridaan sidii hadalku dhigtay. xildhibaanadan ayaa ka mid ah tiro xildhibaano mucaarad ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina si adag kaga dhiidhiyay qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira hab hogaamintiisa. xildhibaanadan ayaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo kooxdiisu waxay ku eedeysay inay diidan yihiin qabashada doorasho ee ka dhacda dalka waxaana garbaheeda taagnaa marka hadalkan ay jeedinaysay xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in nidaamkiisu uusan dooneynin in maamul goboleedyadu ay ka qabsoonto doorasho sidoo kale tan uu doonayo inuu sii jiro waxaana ay ka digtay in uu ku fikiro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu kursiga isla haysiyo isla markaasina sii joogo muddo aanan cayimnayn. madaxweynuhu ayay u sheegtay inuu xusuusnaado in waqtiga u haray ay tahay kaliya 2 sano taasina ay tahay mid mudan inuu ogaado madaxweynaha qaranka sida ay sheegtay xildhibaan Faa'iise Jeete. xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka ayaa garba joogay hadalkan markay jeedinaysay xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca kale tan Somaliland waxay digniin u dirtay dowladda Turkiga iyadoo cabsi xooggan ka muujinayso maraakiibta xukuumadda Ankara ay u soo dirayso xeebaha Soomaaliya. xukuumadda Ankara ayaa wada dadaal markaasi ay xeebaha Soomaaliya ay kaga horgelayso isla markaasina ay ku doonayso inay ka sameyso shidaal qudis kadib markii barnaamijka ciidamada Turkiga loogu soo dirayo badda Soomaaliya horgeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan baarlamaanka dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa arintan qoraal xasaasi ah ka soo saartay. qoraalkan oo la soo dhigay mareegta X ayaa waxa ay ku sheegtay Somaliland in ay si adag ay kaga soo horjeedo damaca Turkiga ee la xiriiray inuu ku soo galo biyaheeda iyada oo sida hadalku dhigtay sheegtay in tallaabadaas ay ka hortagi doonto uguna digaysa Turkiga inuu farageliyo arrimaha Somaliland waxaana ay sidoo kale ka digtay wax walba oo lid ku noqon karo heshiiska Somaliland ay la gashay Itoobiya. Turkiga ayaa u dhaqaaqaya xeebaha Soomaaliya dhawaan si uu halkaasi kaga fuliyo qorshaha qudista kheyraadka dhaxeegaga dalkeena halkaasi oo uu Soomaaliya uga soo saari doono inkastoo uu macaash badan Turkigu ku helayo arrinkaas haddana Somaliland ayaa ka digtay wax walba oo lid ku noqon karo heshiiskii ay la gashay dowladda Itoobiya iyo Somaliland ayaa heshiis galay 1 January halkaasi oo Muuse Biixi uu saxiixay xukuumadda Addis inay qaadato qayb ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amray in la dilacsiiyay ciidamadii kooxda argagixisada ee AS ku xasuuqay gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya kuwaas oo isugu jira daraawiish iyo military. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariintan u diray hogaamiyaha Jubbaland iyada oo madaxweynaha Jubbaland uu madal ku dilacsiiyay askartaasi. madaxweynaha Jubbaland ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u wakiishay inuu dilacsiiyo dhammaan saraakiil xigeenada iyo sidoo kale dableyda ee ka qayb qaatay weerarkii ba'naa ee lagu jabiyay kooxda AS ee ka dhacay gobolka Jubbada Hoose hub culusna lagaga soo furtay. ciidamadan ayaa guul taariikhi ah ka gaaray dagaal qaraar oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya iyagoo halkaasi ku xasuuqay maleeshiyaadkii ugu badnaa ee Al-Shabaab meedadkoodina madal qura ku soo sawiray iyagoo hubkii ugu badnaa soo bandhigay barnaamijyadeedkeenana maanta waa naga inta nabadgelyo.